بسم الله الرحمن الرحيم. بري تاريخ ذو بيش مارس الديدة وأنا مالنتي عالم كويه شيئين النقطة مالنت اللي دبال دقيقة هوانك إن كستوي تهاي مالن عالمية أو مالا بدنا أدون كان لوجا دبال دقيقة هدنا أديك الله فتقاق ويكو خصيصة أو أركنين تهاي مالن أما dada ajnabi sameeyeen ama dawladda kalluun dabaal degayaane haweenka laga hadlayaa waa haweenka adiga ku khuseeya tusaale yar kaasi sanadku markuu 1993 ayaa anigoo taagan albaabka iskuul la yiraahdo Sheekh Bashiir oo magaalada Hargeysa ku yaala oo ag taagan maamulihii iskuulka oo ul haysta marka albaabka wuxuu taagan yahay ardayda soo habsaanta ee iyagoo habqana kulba iskuulka imanaya ayuu u soo xoogaa ku waabinaya oo leeyahay socda fasalka dhaqso gala ayaa inay yar ordaysa albaabkii ka soo gashay markii maamulihii isha ku dhufatay ayay sidii wax baqanayeen intay siira taagtay haddana dhinac u yara waabatay maamulihii baa ku yidhi naya kaale intay istaagtay buu ku yidhi xaggeed ku soo habsaantay waxay tidhi macallin hooyaan qadow geynayoon ku soo habsaamay wuxuu ku yidhi orda soco oo fasalka gal way orda fasalkii bay gashay markii hadalkaa tidhi hooyaa aan ku soo habsaamo qadada u geynayay waxa laga yaabay markii inaad fahamsanay waxa u jeedo laakiin marka xilligaa la joogay aniga iyo maamulaha iyo dadka kale oo magaalada jooga oo dhan si fiican baan u garanaynay waxa inanta yar uga jeedo hooyo ayaan qada u geynayay xilligii dalka la soo galay shaqo may jirin dal burbursan ummad baaba'san dawlad loo shaqo tagaa ma jirto hay'ad kale loo shaqo tago saas ma jirto ganacsi ma jiro guriye ma jiraan waad ka garanaysaa raggu shaqo wuxuu u yaqaanaa ama marka dawlad loo shaqeynayo ama marka loo shaqeynayo hay'ad ama marka dukaan iyo shirkad ku furan tahay ee ganacsi ku furan yahay dumarkase mas'uuliyad baa saaran reer hadaad maqasho waa dumarka reerkii iyo caruurtii iyo ninka laftigiisii iyo cidii kale qaraabaheed la noolba noloshoodii baa saaran dumarka fadhiimoodna waqtiga inay meel fadhiyaan gabadh kastaaba way xaadatay sida maalin walba ay quutayoomkii iyo bariiskii loo karin lahaa caruurtooda ay ugu soo halganto marka aad magaalada Hargeysa mesela tusaale soo qaadanay laagsada magaalooyinka kale oo dhanba way jirtay aad ka soo bilowdo galbeedka magaalada Hargeysa ee aad ka timaado wadada ka soo degto hotelka Mansoor ee ku soo dhacda wadada Badda Cas goolada markaa timaado ee soo dhaafto ee timaado goolada State House horti looga leexdo laba soo dhaaf aad timaado goolada wasaaradda arrimaha gudaha soo dhaaf aad timaado baar Hargeysa iyo agagaarkiisa xaqan kale oo leexo hotel Togdheer iyo agagaarkiisa hore u sii soco halka basaska ilaacadu ka baxaan iyo agagaarkeedo dhan hore u sii soco dawladda hoose Hargeysa iyo ka soo horjeedkeeda dhinacan kale bridge ka talow patroolaha total iyo agagaarkiisa hore u sii soco saylada iyo agagaarkeeda hore uga sii soco calaamadaha iyo agagaarkeeda intaas oo dhan waqtiga aan ka hadlayo waa 19 23 94 waqtiyada waxaad ku arkaysaa dumar badan oo wadada agagaarkeeda fadhiya oo dalaayad yar harsanaya oo cadceeduna ay ku dhacayso oo jaad ku iibinaya xaraga kama ahayn balse dumarkaasi waxa ay cadceeda u soo fadhiistaan 10ka aroornimo ilaa 8-9 habeenimo oo fadhiya sida ay uga heli lahaayeen waxoogaa yar oo ay caruurta bariis ugu kariyaan reere way suloobeen dumarka aroortiina way ka soo kala lahaan guryaha habeenkiina waxay ku noqdaan 10ka iyo waqti la mid ah dumarkaasi guryaha waxay kaga imanayaan inanta yar u roon caruurta marka inanta iskuulka kuma qorayaan aroortii ee waxay ku qorayaan gelinka dambe si inanta yar ee caruurta yar ee iskuulka dhigan u sii hayso inta ay hooyadu suuqa ku maqanta qadadana ugu sii karisa caruurta kale yar roon iskuulka ku maqan markay caruurta iskuulka ku maqan duhurkii soo rawaxdo inanta yar way qadaysiinaysaa caruurta markay qadayaan baa la sii dardaarmaysa oo dhansa war hooy hebelo walaalka ka sii war hay waa sidan halkan fadhiista halkan wax ku akhrista sidaa yeela inantaa yari iyaduna intay ama madiibad yar ama kaloorad yar waxoogaa bariisa kusoo rido
ayay la soo lugeynaysaa waxay tegaysaa meeshii hooyadeed fadhiday jaadka ku iibinaysay markay hooyadeed bariiska u geyso ayayna too odhanaysaa way ordaysaa iskuulkii oo ay gelinka dambe ku qornayd oo koodiyo barhka la galo ayay waxbarashadii u tegaysaa inan taa yareen maalintaa iskuulka ku aragno macalinku laa xagad ku saabsaantay waa taa yaree gelinka horena sii haysay caruurta gelinka dambena iskuulka tegaysay inta hooyadeed qadada u kariso dumarka xaraga kamay ahayn ma jeclo qof yani intuu dhaqaaqo jaad lay noqo ama khudrad lay noqo jaadka tusaale maan soo qaatay waxaa jira dumar marka aad 5 aroornimo kacdo ee aad istiraado salaada masaajidka kusoo tuko aad ugu tagaysay iyagoo sariibadaha taagan dumarkaasi waxa ay sariibadaha ku sugayaan khudradda laga keenayo jaleele iyo xumba weyne iyo ta laga keenayo horahaadle iyo geedeeble iyo ta laga keenayo galoolle iyo ta laga keenayo oobarkhadle ayaa salaada hore marka 5 tahay sariibadaha xaajeedihii ordaya keenaan dumarkaasi mid walba waxoogaa khudraday boobaysaa oo iibsanaysaa waxay geynaysaa suuqa halkii ay fadhiisan jirtay si looga iibsado qaar kaloo dumar oo badan ayaad arkaysaa salaada hore kusii kalaaya xira dhiigtii oo iyaga laftigoodu doonaya intay hilibkii soo iibsadaan inay dee suuqa geeyaan yaa arsaaq yaa fataax qaar kale aad arkaysaa markaad meelaha magaalada agagaarkeeda marto xilligaan ka hadlayo killi iyo madiibada iyo waxay sitaan iyo waxoogaa faraajiina waxay raadinayaan meel daar laga dhisayo ama daar duntay la hagaajinayo waxay doonayaan meesha daarta laga dhisayo kuuli iyo wastaadin iyo waxbaa joogo markay arkaan meel la dhisayo ayaa killiga yar camiranaya ama si shaah karinaya kuuligaasaa shaaha ka iibsanaya hadhow marka galabtii kuuliga iyo wastaadinta lacagta loo qaybinayo ayay waxoogaa yar ka helaa intaa yar bay qaadaan carruurta ku masruufa horta noloshan aad aragtay maanta ragga dee aniga iga yaryar u badan ee qaarkood isxoodayaan maanta dee ay yani ama madax yihiin ama ay shaqeeyaan ama maasha Allah ilaahay oo kordhiyada ama quruxda badan ama muuqda sida ay si lamida lagu soo wada koriyay oo hooyo ayaa inta noloshii uga hadhay ku soo korisay bacadka raggu xilliga waxba muu qaban kareen waayo raggu shaqo kaliya qaban karaya waxa ahaydun inuu ama dawladu shaqeeyo ama hay'adu shaqeeyo ama wax lamid oo shaqeeyo muu garanay shaqadan uu ka khajilay hooyadu sabab khashisho marka ay timaado nolosha caruurteeda ma khajisho hooyadu mid kale sii leedahay oo ay ragga ay inta badan ba ku dhaantaa waxa weeyaan hooyadu dan gaaraba male maanta hadda 10 shilin u dhiibto hooyo waxay u badan tahay haday si kasta u gasho 9 kamid ah 10 ka shilin caruurtu dib u galaya ninka ugu wanaagsan ee ugu fariidsan ee ugu reerka jecel hadda 10 shilin u dhiibto markuu dadaalo 5 baa reerka gaadhaya ragga markay noqoto ninku wuxuu jecel yahay inuu isagu wax noqdo in wasiir noqdo in dawladu galo inuu mutacallim noqdo inuu shaqo helo inuu jaamacad galo inuu ganacsi furto hooyada farxadeedu inta ma aha hooyada farxadeedu waxay ku dhan tahay marka caruurteedu wax noqoto iyadoo waxba kama rabta ifkan hadday mutacallim ahayd hadda wax kasta ahayd waxay nolosheeda oo dhan u hurtay in caruurteedu wax noqoto hadaba haweenka lagu leeyahay u dabaaldeg haweenka lagu leeyahay xus haweenka lagu leeyahay qadari horta waa kuwa waa inaan taayare 9 jirka ama 10 jirka ee reerkana gelinka hore haysa gelinka damada wax dhigata iyo hooyada subax soo kala haday habeenkii guriga ku noqotay bacadka fadhida dadaalaysa bacadka wali sidii baa loo fadhiyaa hooyooyinku wali dadaalkii way wadaan waxaana u wadaan sidii reerkooda iyo noloshooda ay meel noqon lahayd waa laga yaabaa in horumar badan la sameeyay oo maanta badee wasaaradda ugu xoog weyn leedahay wasaaradda maaliyadda gabadh ayaa loo dhiibay oo maanta dee maamulaysa waa laga yaabaa inay noqoto laakiin in kasii badan baa la filaya dumarkii masaakiinta wali sidii bay gidaarka u fadhiyaan sidii bay wali dadaalkii ugu jiraan sida yani nolosha qoysaskooda kor u qaadi lahaayeen adiga maxaa kugu waajiba hadaba waxa kugu waajiba horta inay dareento waxani waxa uu yahay iyo xuska haweenka loo sameeyay xuska dumarka loo sameeyay waxa uu yahay waa hooyada iyo walaasha wax laga hadlaya lagama hadlayo dumar ajnabi iyo badaha taagtaagan shirar ka qayb kalimaha kuwa laga hadlaya waa hooyada iyo walaasha waliba walaasha yare kaloorada yar sidata ee bariiska u soo qaadaysa hooyada iyo hooyada bacadka fadhida laga hadlaya waxa kugu waajiba berri maadaama ay 8 dambe tahay horta inaad xusto haddii Ilaahay ku daayay oo cimrigeedu nool yahay maanta ay hooyada nooshahay
inaad xustaa waa u baahan tahay ood la hadasho oo tidhaahdo waa dabaaldegeed madaxa ka dhunkato walaashaa laftigeedu waa la mid haddii ay dhimatayna dee inaad ducayso sadaqadu bixisa laftigeedu waa waajib hooyada laftigeedu waa waajib ku saaran laakiin hooyada iyada walaashaan waajib kaama saarna hooyo oo dhan buu waajib kaa saaray hooyo kastood berri aragtood waddada maraysa markay ugu liidato caleen qoyan u soo gooyo u dhiib waa maalintii hooyooyinka dhe waa maalintii dumarka dheh ka yara farxi intaasaa wax weyn u noqonaysa haddii aad mas-uul tahood mas-uuliyad inunku hayso dee mas-uul weyn wadan day leenahay aniga igan dee hadlayaaba xilda cidna uma hayo dee dowlad uma hayo laakiinse haddana inunbaa igu beegano kolley ama afartaa qof ii dhegeysanay ha noqdo ama in kaloo naqaana ha noqoto inaad u doodo in hoos loo eego wadciga hooyooyinka gaar ahaan kuwa waktigu hayo oo noloshooda kor loo qaadaa waa muhiim inay siyaasadda ka qayb galaa waa muhiim in hoggaanka dalka ay hadal ku yeeshaa waa muhiim in golayaasha wax ka noqdaan waa muhiim in codkooda kor loo qaadaa waa muhiim in telefishinada ay ka muuqdaan iyagoo hadlaya oo codkooda kor loo qaado oo ay fariintooda la dhegeysto oo taladooda la dhegeysta waa muhiim aad baad u mahadsantahay haddaad videoga dhegeysanayso waxaan rajeynaya inaad ku camal fari doonto ciid wanaagsan iyo dabaaldega maanta u samaynayno haweenka adduunka iyo haweenka dalkeenaba waad mahadsantihi